saaka waxaan joognaa xarunta wasaaradda beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga muhiimaduna waxay tahay sida dhaqaaqa ka arkaysaanba dadkii ka soo barakacay fatahaadda webiga Jubba uu ku sameeyay deegaano ka mid ah Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ayaa soo gaaray magaalada dadkaas beeraley bay ahaayeen runtii maadaama wasaaraddii beeraha nahayna way soo wajaheen wasaaradda annagu marka kaliya waxaan sameynayna waxa waaye inaan dadkii ururino oo magacyadoodii qorno meelaha ka soo barakaceen aan qorno meelaha ay tegayaan ama meelaha ay join gareynayaan aanu si cadeyno iyo telefoonadooda kadibna hawl waxa jirtay maamulka gobolka iyo degmada iyo ka socotay guddiga wasaaradda ka tirsan si wadeen iyo hay'adaha samafalka gaar ahaan OJA iyo kuwa kale inaan la wadaag marka hay'adaha samafalka iyo wasaaradda ku shaqada leh wasaaradda arrimaha bulshada iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorsheynta iyo kadibna aanu xogta iyo macluumaadka la wadaagno madaxda sare ee Jubbaland fatahaadaha uu sameeyay webiga Jubba maxaa khasaaro soo gaaray dadka beeraleyda sidoo kale dadka xoolaha guud ahaan fatahaadu markay dhacday inta badan waxyaalaha saameynaysa waxa kamid ah dalagii beeraha ay dadku tabcanayeen waxa kamid noqonaya hoyga naftigiisa deegaanka deganaayeen ceelkii ka cabayeen baa duugmaya dhammaan wax isbedelaya jawigii nolosha ee meesha ka jiray qofkuna uu ka huleelaya meesha oo wuxuu raadsanaya meel kale nolosha oo inta ka wanaagsan tahay marka hadda waxaad ku jirtaan xaalad gurmada oo la doonayo in lagu gurmo dadka ay beerahoodii biyo la tageen insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaanu u gurmano waxaan karno aan sameeyno baaqna waxaan u jeedinaynaa hay'adaha samafalka ee gobolka ka shaqeynaya wasaaradaha dawladda shakhsiyaadka ganacsatada iyo dadka danaya wanaagga bulshada iyo cid kasta oo ka damqanaysa dadkaas inay way ku habooyin la caawiyo insha Allah dhulka aysan Jubbaland ka arrimin ee fatahaadu ay gaadhay see loola tacaalida ku soo dhulkaas muhiimaddu waxay tahay wax badan oo ka gaaraya ma jiraan waxay kaliya noqotay sida hadda muuqataba dadkii inay soo barakacaan u yimaadaan halkay maamulka dawladda ku filayaan ay yimaadaan taas baa muhiimad u tahay qofku soo gaaro halkan marka insha Allah taala gacan buu helayaa